soomaalida aalada iska yeesha ay ilaahan wahaabiyada soo gashay berigaas wahaabiyada soo gashay ma taqaana revolution waxa ha kulli waa taqaana kacaan intaas yani haddaad dadkii waddanka joogay aad tahay weliba reer Somaliland haddaad tahay kulliba taariikhda wixii lagu dhigay revolutionada reer galbeedka ayaa dee tifka ahaa marka ma ogtahay in kacaano soomaalida ay sameeyeen jirto aan laakiin kacaan loo aqoonsanayn marka laakiin kacaana ana kula wadaagay kacaanadaas marka horta intaan kula wadaagin aan kacaan wixii isla fahano kacaan waxa weeyaan wax kasta yani waxa weeyaan kacdoon kasta oo bulshadu sameyso dhaqaalahaan ahaado dhaqan ahaan ahaado amba yani diin ahaan ahaado yani isbedel kacdoon isbedel ay bulshadu sameyso weeyaan marka kacaankii ay Soomaalidu sameysay waxa jira 3 kacaan ba kula wadaagay oo Soomaalidu ay sameysay waliba muddo yar oo ah intii magaca Soomaaliya la isku oranayay ay sameysay intii dawladda Soomaaliya 60ka 70ka sano waxa uu 70 boqol sano gudaheed wax ah ay Soomaalidu waxay sameysay 3 kacaan oo waaweyn labo diintay ku saabsan yihiin midna waa dhaqanka marka to ku horeysa waxaan ka dhigayaa Soomaalida berigii hore hablaha in la furo waxay yaqaaneen wax ceeba hatta waxa dhici jirtay inanta marka la soo furo in reerkooda ay ku soo noqoto reerkoodu guriga amba xaafadda meel ka baxsan ay buul uga dhisaan laakiin gurigooda u dhow iyagoo leh yaani nasiib daradeeda ayaan la'aanteeda yaani xaafadda kale qaadsiin yani takoor xun baa ku dhici jiray soo kale waxa loo yaqaan wax ceeba yani waxa jirtay kelmad ah idilo hay furo wax noocaas ah yani dumarku ninku dilo ay ka dawlad jireen in la furo laakiin ima kasta waan ogan arrintaas ahna ma aha arrin aad u fog yani waxaan jiilkeenan ay yeeshadeen noocaas aha weeyaan hase yeeshee kacaan baa yimi ah in ruwaayada la matalo kasoo horjeeda aragtiyahaas ah furninku wax xun yahay in gabadhu baan nasiib tahay haddii gabadh la furayna khalad gabadha quraata saaran yahay ruwaayada laga matalay heesa laga sameeyay bulshada dhexdeedii ayaa eray bixiyo kala duwan sida haddii lagu furo mafeer baa ku jabay iyo haddii lagu furo farxado furan mehed yani eray bixino lagu larayo furniinka inuu wax wanaagsan yahay lagu cadeynayo amba wax iska caadi looga dhigayo ayaa la sameeyay yani waqti bay qaadatay dabcan habeen iyo maalin isma bedelin meelaha 20 sano ay qaadatay aragtiyahaas bulshada dhexdeeda in dumarku isku ilaahaan in yani dhiirigeliyaan la soo furo yani ilaa markii dambe furniinku caadiyoobay oo imakadan aan ku jigin furniinku caadi iska yahayba ilaa xataa ragga qaar ay dumarka goobta amba carmarka ka doorbidaan ka fiirin dumarka kale kacdoonka kale nasagu waxa weeyaan diinta waxa jiray dumarkeenu ma xijaaban jiray yani marxamad waxa la yiraahdo ay xulan jireen marxamadana waxa xulan jiray gabadhu markay guursato ay xulan jirtay laakiin inantu marka aan tan la guursan waa mar ay yartay food leeba la oran jiray timaha loomad beeri jiray yani timaha waa laga xiri jiray in yaro fooda horaayo wax noocaas loo soo reebi jiray waa markii yartaana qaan gaadho weeyaan inanta hadii qaan gaadhana maxaa loo oran jiray inan tima tidcan weeyaan marka inanta timaha tidcan lana timaheeda inta dabto ay sii dan jirtay inantu markay guursato ay dumarku xulan jireen waxaas malxamada markay guursato timaha ay qarin jirtay ma saxan inta timaha quraata ay ku xirayso markii xilligii siyaad barre oo xukunka hayay xilliyada ayaa waxa soo baxay kacaan dhalinyaro diinta si fiican u fahmay oo dumarka inay xijaabtaan ku dhiirigelinaya inkastoo siyaad iyo dawladdiisu ay kasoo horjeedeen dhalinyartaas oo ay xulxuli jireen oo yani dawladdiid baa la oran jiray yani lagu yeeri jiray marka kacaankaasna inuu hirgalo waxa suurta geliyay markii dawladdii siyaad ay dhacday waayo siyaad aad buu la dagaalami jiray xataa iskuulada hablaha looma ogolaan inay soo xidhaan ta doonta xataa waa loo diidi jiray inay xidhato mamnuuc bay ahayd yani shay su'aal hablaha la oran jiray iskuulada ku kaalaya markii dawladdii dhacday ay dadkii qaxeen kadib xijaaban baa xidhay mar quraata ma xijaab xidhay yani hooyada waxay iga sheekaysaa inaa iyadu xulan jirtay iskuulkana saa awgeed uga hadhayba oo dugsiga
afraad dugsiga dhexe marka laga soo baxay dugsiga hoose marka laga soo baxo dugsiga dhexe la imanayo ayaa hablaha loo jeesaan suwal xudha yani maaha madax la qarinayo madaxa marna lama qarinayo laakiin dugsiga hoose habluhu haaf iyo shaar bay xidhan karaan haaf amba gooni iyo shaar ay xidhan karaan laakiin dugsiga dhexe haday noqdaan diriskoodu shaar suwal buu hasayn amadoo kale marka jalaabidna markasta mamnuuc buu ahaa jalaabid muu jirin laakiin sida wax go-oo kale ah bay saa dumarka isku duuduubi jireen sawir yaro muujinaya halkan baan insha allah nisoo dhigaya say u xiran jireen kuwa xijaab marka xijaabka qaadanaya kacdaankaas markuu jiray revolutionkaas habluhu say u xijaabin jireen yani go-oo kale saa isku duuduubi jireen marka dhalinyartu yani xilligii filkooda ahna dudumu kale nimoodaaba waxsan aad xiransan adigu kuwii oran jiray dudumadu ay kaateen iyo kuwii dudumada u eekaaba markii horeba markii qaxi dhacay la qaxay ayaa jalaabid bala wada qaata wuxuu faa'iidooyinka burburka Soomaaliya waa mid kamid ah aniga mid kamid ah iga tahay faa'iidooyinka laga dhaxlay burburka Soomaaliya waa in dumarka xijaabteen kacankii saddexaad waxa weeyaan sagna diinta ay ku saabsan yihiin labada kacaan ah dumarku inay xijaabtaan iyo kan kale xiriir bis leeyihiin waxa weeyaan Soomaalidu يعني لحدنكي وحي كهوري يعني ما قرنا يوحي ساوي قصي هوري لقى وقت بدل أساس إن ديس بدلين لكن لحدنكي وحي كهوري سير الأوجي هاي واحد خرافات بالدين تكبوحي خرافات بكبوحي وحي تيجي تشرين محو هاي إنه وحي تيجي تشرين قبورها أنت تجمع بأوليو يوحل الشيء صلاة ممكن تكون يا وحلولين تشري إلهي ريد عادي ريد مدو عانهيدا مid ka dhigo Allahu akbar taas salaada loo xiran jiray dinta khuraafaad fara badan ba ka buuxay saayid u badan dhinac kastaba kadibna kacdoonka xijaabka iyo habluhu ku xiranayaan iyo kan khuraafaadka dinta laga saaro was ku jireen was la socodeen taas isku la socodeen waxaan haynaa labadoodu siyaad bar la dagaalamiyay alxamdulillah way guuleysatay imka ma jirto cid awliya sheegaysa ما جرتو عيد قبورة تجيسة حتى قبورها هنا صا يعني أنت سكرها فين بي وح كعبة ودو بي يعني وح جاني وح كعبة ودو إني سمستان إن أول خط ل مجال اللي راها تولد دير مجالنا هندقمو وحيت هايوا أول حيسة هرجيسة يو بربرو حيسة وح كعبة وإيه ودت كوكو ريجي ترين دقح بيكو ريجي ترين xanta qaar noox loo jeedo dumarka adigu fadhiistaan medaliska way dhalayaan halkaas waxa iskaga iman jiray Soomaalidu oo dhan deegaan kasta min maxaa Jubaland xageeda min xagga Djibouti wal iskaga iman jiray waxa ahayd yani kacbo Soomaaliya ay ma oran karantay ma garanayo marka kaasna Soomaalidu khuraafaadkiina mar quraatu ka baxaan marquraata ma oran karno laakiin dhalinyaro diinta dadka baraayay ay marka dadkan maxaa la yiraahdaa Soomaalida gaalada iska yeesha ay ilaahan wahaabiyana soo gashay barigaas wahaabiyana soo gashay ilaahan waxa soo dad waxa weeyaan dhalinyarada kacdoonka waday xijaabka iyo khuraafaadka diinta laga saaro waday weeyaan yani wahaabiyada Soomaalida soo gashay dadka qaar ay sheegaan ay ilaahan xilligaas soo gashay yani toddobaadkii wax noocaas marka Soomaalida saddexda kacdoon ba soo maray intaan anigu marka ka sheegi karo kacdoon aan ku sheegi karo saddexdana way guuleysteen bay himbareen waxaan ahaan saddex positive yani kacdoon wacan ah ayuha khuraafaadkaas diinta ka buuxday marka Turkida ayaa aad uga buuxda yani waxay ku oranayaan asxaabi Umar bari Ali bari nabiga bari bay ku oranayaan يعني كود ودادة كوا كله دين بوربا كما هيام به ودادة دين تودو ما هو ودادة دين تودو أحكولنا إن علي باري عمر باري إنه ودادة صاحبنا هي وتري عمر باري مركز دعاء السميني صحة لها عمر أو النبي بيقول تري حنقول حنكبري إليهم بري هاي وكوب دعاء دي بقول أقبل إياه يحنا عاصله وأنا قاعد عين كرواية إلهه يقول على تسكبر يضا لكن الحمد لله إن خرافاتك عسير مكانك نجا بحاجة إسلام ديرم بيننا هاي دعاء كل عيننا هاي كذا تيمس كيننا هاي